culimada waxgaradka iyo dadweynaha kale ee reer Gabileyba aad iyo aad baan idin salaamaya waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waqtigoo yar aawadeed waxaan jecelahay inaan in yar oo faahfaahina marxaladii uu soo maray isbitaalku aan in yar dul maro waxa weeyaan dalka markaynu soo galnay waa kii burbursanaa dhammaantii tiinka ka baxayna aad ogeydeen waxa ugu horaantii wax ka qabtay dhakhtarkan dalada maandeeq iyo UN Habitat oo ay weheliso dawladda hoose waana mashruuca lagu fuliyay dayrkan aad arkaysaan oo nuqaanta markaa ku qabanay waxa ku baxay $4,413 dollar iyo 30 senti 15,000 oo kamid ah UN Habitat baa bixisay $5,000 waxa laga soo diray dibadaha 2,553 dawladda hoose ku dartay 1,860 dalada maandeeq ayaa bixisay waxa ku xigay oo laga qabtay wax inta dabadeed oo runtii aanan jeclayn inaan imika taariikh ahaan uga sheekeeyo laakiin tiinka iyo dadkii meesha deganaa ka saaridooda oo kaliya tiinka xitaa dadkii halka boqosha ka dhaxbaystay ay ka darnaayeen laakiin hawshaasi aad baa loogu guuleystay oo idinka arkayana maanta inkastoo ay wax badan harsan yihiin oo hortiisiiba sidii looga hadli lahaa ay taalo haddana waa idinka arkaya oo dayrkii maanta waxa xalaaleeyay dhakhtarka dhulkiisii weeyaan kadib ururka gaardo ee UK ayaa 2 qol oo ay ugu tala galeen X-ray ka dhisay oo ay ku baxday iyadana kharash ah $3,594 kadib waxa la dhisay labada ward oo xagga shishe ugu xiga oo ay markaasi ay dhistay dawladdu ambase marwada koowaad ay ku soo bixisay contribution oo lagu dhisay waxa ku xigay labadan ward iyo payment wardskan iyo xafiisyadan aynu hor fadhino oo bisha cas ee imaaraadku ay bixiyeen oo iyaguna $90,000 ku bixiyay maanta munaasabadan aynu iskugu nimid waxa weeyaan muddada faraha badan leh dhakhtarka lacag baa loo ururin jiray lacagtaa loo ururinayo ee ay dadka dibadda ururinayeen sidii la iskugu keeni lahaa ayaa hawl badan ahayd maanta ururka gaardo UK wuxuu sidaa $75,000 oo dhakhtarkan dhismihiisa feeska labaad lagu bixin doono marka aniga oo u mahadnaqaya ururka gaardo guddideeda dhexe iyo guddi hoosaadkooga iyo guddida haweenka gaardo oo dhaxanta iyo barafkaasi u socon jiray hal iyo habeen oo gini u soo ururiyay lacagtan ayaan halkan uga mahadnaqaya waxa kale oo halkan uga mahadnaqaya guddida dhexe ee isbitaalka oo ka kooban xubno deegaankan gobolka ka tirsan iyo xubno aan deegaanka u dhalanba ka kooban oo iyaguna gaardo ka mid ah guddida odayaasha Cardiff oo iyaguna hawl weyn ka geystay lacagtaas sida u soo ururin lahaayeen waxa kale oo ilaahay baa mahadlay halkan aan uga mahadnaqayaa guddida odayaasha Bristol oo iyaguna lacagta ugu wanaagsan iyaguna soo ururiyay guddida magaalada Milton Keynes oo iyaduna lacag wanaagsan ka bixisay waxa kale oo halkan uga mahadnaqayaa guddiyada meelaha la iskugu yimaado leh ee odayada Welburn Bar iyo Welburn Central oo magaalada London oo iyaguna lacagtan aad wax uga bixiyay waxa kale oo lacagaha la soo gaaray kamid ah oo imika dhismahan lagu sameeynayo jaaliyada reer Gabiley ee Canada degan sidii aan horeba u shaacinay waliba khaas ahaan Ottawa iyo Toronto oo iyaguna $25,930 soo diray Sweden oo iyaguna $10,100 soo diray USA Mareykanka oo isagana $10,000 laga soo diray lacagtaasi ayaa imika la hayaa oo gacanta ku jirta $121,000 iyo 30 taas ayaa imika dhakhtarka lagu bilaabi doona waxa weeyaan ilaahay baa mahadle haddii horta horumar loo dhaqaaqo aad baan u mahadsantiin sida fiican aad ii dhageysateen assalaamu calaykum